madaxweynihii hore ee dalka Brazil ayaa lagu xukumay 7 sanadood oo xadhiga yaxay Nairobi ayaa warkaasi faahfaahinaya. madaxweynihii hore wadankaasi Brazil Bolsonaro ayaa ay maxkamadda sare ee wadankaasi ku xukuntay 27 sano oo xadhiga 27 sano saddex kamid ayaanu jeelka ku qaadan doonaa. maxkamadda ayaa cuskatay inay ku cadaatay inuu isku dayay in qaraab uu dalkaasi ka fuliyay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii tagay ee sanadii 2022. qaraar ka soo baxay maxkamadda sare ee wadankaasi ayaa lagu cadeeyay in madaxweynihii hore wadanka Brazil uu sharciga gacmaha ku qaatay. shanta garsoore ee ugu sarreeya maxkamadda wadanka Brazil afar kamid ayaa isku raacay xukunka ay maxkamaddu riday. madaxweynihii hore iminka ku jira xabsi guri ayaa isku geyn marka loo eego xukunada ku dhacay waxa uu jeelka ku jiri doonaa 40 sano. madaxweynihii hore wadanka Brazil ayaa doonayay inuu doorashada sanadka dambe isu soo sharaxo ayaa guud ahaanba laga mamnuucay. waxaa kaliya uu doorashada madaxtinimo isugu soo sharaxi karaa wixii ka dambeeya sanadka 2030. maxkamadda sare ee wadanka Brazil ayaa sidoo kale xukuno kala duwan ku riday xubno kamid ah dawladii madaxweynihii hore wadankaasi. naasina waxaa kamid ah wasiirkii hore gaashaandhigga la taliyay hore dhinaca cadaaladda iyo wasiirkii hore ee cadaaladda wadanka Brazil Yaxya Muuse Ibrahim Nairobi wararka arrimaha dibadda TV-ga qaranka Somaliland Hargeysa.